waxaan aaminsanahay kuwa jiilka kacaya inay iyagu taalo ii dhisi doonaan tobanka bisha May waa maalin ay Soomaaliland u dabaaldegto dib loo soo noqoshadeedii xorriyadeedii taasoo ku aastaysan 1990 markii ay Soomaaliland ay ka gooday goboladii koonfureed ee la isku oran jiray Soomaaliya qaranqaran waxay ka mid tahay dadka aadka u xusa bisha 18 May saa wada arkaysa waxay ku gaashaaman tahay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland qadan soo dhawow maxay kaaga dhigantahay maanta waxay iga dhigantahay maanta maalin aad u farxad badan maalintan oo kale anigu naf iyo maal waxaan u huraa 18 May waxay 18 May kaaga duwantay tii hore maanta 18 May dan waxay iga duwantay tii hore waxa ku soo beegmayay caqabado badan tan laakiin maanta caqabad kuma soo beegmin 1 May ilaa maanta waxaan u taaganahay oon diyaar u ahay in aan calankayga iyo ciidayda iyo May iyo raggii ii dhintay ee godka ii galay intaba in aan wixii ay iiga tageen aan muujiyo anigoo nin kaga abaashanayn xisbi kaga abaashanayn xukuumad kaga abaashanayn kaliya la kaashanaya dhalinyarada qadan gurigaagii uu ka duway guryaha ku yaala halkan dhammaan waxa ka wada dhigtay wada calan maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa calanka inaan baro 18 jirka 19 jirka 20 jirka 16 jirka inay iga bartaan qadiyadooda iyo calankooda iyo quruxda dalkooda waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliland dalkeena iyo dadkeena iyo hantideena waxaan aaminsanahay kuwa jiilka kacaya inay iyagu taalo ii dhisi doonaan waxaan jecelahay dalka iyo dadka midaysan waxaan leenahay Soomaaliland guul iyo gobonnimo dhalinyarta magaca iyo maamuuska ii samaysay ha guulaystaan kuwa imaal galiyay ha guulaystaan gaar ahaan qurba joogta oo naf iyo maal bay duldhigay waxaan halkan uga mahad celinayaa maamo qadan oo aad ugu faraxsanahay sida noo tabaabushay sida noo abaabushay runtii cid noo oogi ma jirto laakiin qofka kaliya teena dareemi karo weeyaan iyadoo waxay iga dhigan tahay in aan u labisto idhimeyga oon xuso inaan wadankayga aan la farxo dadkayga la farxo maxaan ku dhahdaa ciidaydii aan ku dhex joogo nabad iyo nololba dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan maadaama taa maalinta xornimada ay qaadatay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maamo qaran agteeda taagantay waxaan la dhigaa ma jiraan waxaan uga doortay qaran horta waa maamo wanaagsan markeeda koobaad maal iyo naf buu noo hurtaa waxaan u baahnaa garamaan iyo calamaanbayada jabida nooga bixisay dawladnimo siisayada ma fahantii sidaa darteed anagu xuduudeedii baan nahay meeshii doonaysa inuu gaarsiin hadaan dhalinyarada caaminay waan dhawahay maanta kale waxa iga dhigantahay maalin aad iyo aad u qurux badan waana maalintii ugu horeysay kaliya sidaan aan arko aan farxadeeda lama soo koobi karo